kaxda ayaa waayahan dambe waxay noqotay meesha ugu casirsan oo ugu koonaysa oo laami qurxoon iyo jawi degan iyo xogaa buuq iyo saxmadda markii laga baxo ay dadku ku jeclaadeen inay tagaan haddaba waxa uu uga duwan tahay saxmaddaas iyo deganaanshiyaha iyadoo weli fresh oo cusub oo dhul qurux badan oo bannaan oo cagaar la helayo haddaba waxaan u maleynayaa khamiista iyo jimcaha wadada degmada kaxda inaad marto ma awoodaysid dadka taagan ama dadka maraaya haddaad u gudubto waxay leedahay dhul bannaan oo goofaf iyo cagaar oo aad u qurxoon saa darteed waxaan leenahay ku soo dhawaada kaxda imaada saacad walba daqiiqad walbana imaada waa amni waa dalxiis waa cagaar waa everything hawo qurxoona ka helo caanihi geela laga helaa caanihi looda laga helaa kuwii ariga laga helaa everything kaxda waa ka helay haddaad u baahan tahay inaad banooni ku ciyaarto meel furan oo qurux badan oo ahayn cagaar oo la sameeyo feeg oo qurux badan dhexdeeda ku ciyaari kartaa haddaba waayahan dambe dalxiiska wuxuu ugu batay meelo oo cagaar oo la sameeyey iyo waxaa kaxda ugu tegay original everything caanihi geeloo saxa kuwii loodoo saxa kuwii arigoo saxa dhul qurux badan buuro roob qurxoon oo da'aya xagga waxay ka saaran tahay baddi xaggana cagaarkay ka saaran tahay kaxda intaa ka qaata waana idin furan tahay maalin kasta iyo subax kasta waa imaan kartaa waddo qurxoonna waa leedahay waa ogtiin hadda waddadii ex control waa u furan tahay midaan dharkeelle iyo dhex martaa wadajirra waa idin furan tahay saacad walba dadka qayb ka mid ah waxaa laga yaabaa inay isnahaan waddadee jaam yar labada midna jaam ma laha saacadda hartaana tegi kartaa intaa ka bacdi waa dhiirigelinayaa inay dhulka dalka Soomaaliyeed meelo badan aad dalxiis boorihii waxaa jira ceergaabo waxaa jira jowhar waxaa jira afgooye dalkeena waaba dalxiisba nimanka khawaarijta mini laga xoreyn lahaa ilaahay hanaga dhameystire markii laga xoreeyo qof u baahan doono male muwaadinka Soomaaliga waxa dalxiis ugu filan inuu inta ka kaco tiyaatarka oo uu tago liido laysa dalxiis inuu inta ka kaco beerta nabadda si degan ugu dalxiis nolosha dalxiiskuna amnigu ka bilowdaa minaad amni haysato saasaa dalxiis ku jirtaaba dad baabuurkaaga halkan ka kaxayso inaad Kismaayo ku tagto ama inta ka kaxaysa gaalkacyo ku tagto dalxiis ku dhiman ma jira dalxiis ku dhiman ma jirto haddaba dalxiiska laftigiisii ayaa wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo la haystaa yaa haysta khawaarijta haysata dalxiiska laftigiisii la haystaa dhul qurux badan weligaa Kismaayo iyo Muqdisho inta u dhaxaysa ma aragta yaa arkay inta badan dhalinyaro loo badan yahay burburkii la barbaaray xaaladdu intay kala xirreeda la barbaaray qofka Kismaayo iyo Muqdisho maya Kismaayo inaad baabuurka diyaarad ka raaco halkaan ma ahaan maya qof kasta leeyahay anaa kamida weligii gaalka Kismaayo iyo inta u dhaxaysa Muqdisho baabuur kuma marin Kismaayo markaan u baahdo diyaarada raaca gaalkacyo inta u dhaxaysana kuma marin haddaba dalxiis ku dhiman ma jiro in intaad baabuur Muqdisho ka qaadato ama gacantaada ku wado ama darawal ha lagu wade aad gaalkacyo ku tagto ood Kismaayo ku tagto ood Hargeysa ku tagto ood Garowe ku tagto ood Baydhabo ku tagto ood meel kasta ood Afmadow ku tagto dalka ugu quruxda badan dunida ayaan nahay Afrika nabadda xeebteena ugu dheer dalxiisa East Africa markaa joogto dal oo qoraxdiisu jawigiisu waa degan yahay dhulkiisu waa cagaar waa dal bas nabad u baahan hadduu nabad helo inaan intan isugu nimaadnaa codslaanaysa qof kasta wuxuu raadsanaa meel isagu si gaar ah uu kafeeyo haddaba dhalinyarada waxaa ku codsanayaa dalxiiskana hal hayo oo gacan hal lagu hayo xoreyntana dalxiiskay ka mid tahay waa aragtay dad badan oo dagaalka ku jirina safka hore waxa u tagaan inay sawir soo galaan dalxiis camal Soomaa talo meelay la xoreeyay dad aan raba habeenii maalin oo ku dhahay inuu dalkii la xoreeyay maana la geeyo waxaan rabi lahayn inaan ku soo dalxiisne waa isla socotaa waxa ugu weyn ee qabanaya maadaama madaxweynaha qaranka ku jiro inuu dalka inii xoreeyo dalxiiskii inii xoreynaya dalkaaga meesha rabtay inaad ka tagtaa lagu xoreynaa iyada dalxiis ah haddaba qolada dalxiiska iyo wasaaradda warfaafinta aad ugu maancelinaya inaan la iloogin shaqooyinkii socota midda kale gobolka Banaadir 17 degmay 3 deegaan iyaga dalxiisa maalin ay qaban doonaa weyn waxaa jooga xogayii guud ee gobolka waa jooga isagaana hadli doona waxaa leeyahay gobolka Banaadir maalintiisa oo dalxiiska ay degmo kasta soo bandhigi doontaa iyadoo 17 deegaan mid kasta dalxiis iyo farxad aad ka helaysaan sad intaas aan ka kala timaadeen hadda laftigiina inta fadhiya 17 degmay 3 deegaan ka timaadeen mid aan dalxiis lahayn oo galabkii meel aad ku nasato maskaxda ku dejisata aan lahayn ma jirto dalxiiska waxaa kamid ah safarada haddaba ani dadka inta badan jecelmay safarada dibadda in loo baxo waxaan taaganahay waxa safar kuugu filan ama dalxiis kuugu filan Ras Gamboon ilaa Ras Caseer cid ka celinaysa male nimanka khawaarijta markii la dhameeyana dunidaaba adi dalxiisku uu imaan doonto ma u maleynay Muqdisho maanta nabada xeebteedu saacadan cidlayna ahaan lahayd dunidu maxaa uga maqan tahay
nimankaas ayaa waxay tuseen maalin kasta iyagoo wax sameynaya hadda bal fiiri muqdisho 5 bilood 6 bilood xaaladeedu deganeed xeebta tag ajaanibaa joogta dada ku dalxiisaya jawigu waa degan yahay mas'uuliyiinta fadhida hadday 2 sano 3 sano ka ku socoto ka waran muqdisho meel kale ha aadin dalxiiska nolosha ugu fiican ayaa ka jira muxuu ahaa dalkan inaga la inaga rabaa dalkeena dadkeena inaan nooleeyno cid kastoo dalxiiskeena ka hor imaanaysana aan muxuu ahaa iska wareejino cid kasta oo dalkan horumarkiisa ka hor imaanaysa iska wareejino dhalinyaro guuleysta Soomaaliya ha noolaato halganka khawaarijtu ha guuleysto lagula jira khawaarijtana dalka Allah ka dabar jaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guuleysta kaxda FIFA guuleysta